maxkamadda cadaaladda adduunku waxa ay galabta soo gabagabaysay dacwad badeed u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya 7 sano oo malafka labada dal u furnaa ayaa la soo afjaray waxa ay Soomaaliya ka heshay faa'iido weyn xukunka oo ah in dhulkii lagu muransanayn ka badan 90% loo soo celiyay Soomaaliya sida ay qabaan durba dadka bartay cilmiga xadaynta badaha iyo garyaqaanada fasiraya go'aanka maxkamadda madaxweynaha maxkamadda oo hadlaysay wax ka badan 44 daqiiqo waxa ay diiradda saartay 7 sano oo ay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya soo gudbiyeen qodobo kala duwan doodihii Kenya waxa ay maxkamaddu ka dhigtay kuwa wax kama jiraan ah marka laga hadlayo doonisteeda si gaar ah waxa loo buriyay hadaladii iska hor imaanayay ee maxkamadda ka soo gaaray dhinaca Nairobi bilowgii maxkamaddu waxa ay furka go'aankeeda ku cadaysay inaysan jirin xadayn bada oo ay kala lahaayeen dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxa ay kala wadaad ka raacisay in la adeegsado is-afgaradkii ay hore labada dal u kala saxiixdeen sanadkii 2009 bishii Abriil baarlamaanka Soomaaliyana ay isla sanadkaasi diideen madaxweynaha maxkamaddu waxa ay xigatay in bishii February ee sanadkii 2017 ay garsoorayaasha maxkamaddu isku waafaqeen in si afgaradkaasi aan loo adeegsan karin xalin xuduudeed oo wax kama jiraan yahay maxaa laga diiday Kenya maxkamaddu waxa ay diiday dooda Kenya ee ahayn dhulka Soomaaliya iyo Kenya hore u kala xadaysnaa laga soo bilaabo 1979 maxkamaddu waxa ay diiday dooda Kenya ee xadaynta badda in loo raaco xariiqda isbarbar socda maxaa laga diiday Soomaaliya maxkamaddu waxa ay Soomaaliya ka diiday magdhowgii iyo dacwadii ku xadgudubka biyaheeda waxayna maxkamaddu ku sababaysay inuu jiray muran horeyna uusan u jirin kala xadayn labada dal hadda maxkamaddu way dhamaysay dacwada waxa go'aanka ka mid noqday in Kenya loo baneeyo wax ka badan 12 mayl oo dhanka badda ah ayna muuqato fursad ay halkaasi ka heshay isweydiinta dad badani ay aad ugu jahawareereen waa maxay heshay Kenya Kenya ma helin wax dhul xeebeeda oo ay hore isugu hayeen Soomaaliya 10% ayay heleen biyaha ka baxsan qalfoofka xadka ee Soomaaliya 12 mayl ee ay Kenya heshay waxa tirinteeda laga bilaabay sida ka muuqata qaraarada maxkamaddu tabisay marka laga baxay badda dalka 4 Kenya waxay heshay inaan laga xirin qalfoof qariireedka badda ee ay u soo marayaan maraakiibta u socota xeebaheeda haddii aan halkan loo banayn lahayn Kenya waxa isgaari lahaa Soomaaliya iyo Tanzania Nairobina waxa ay noqon lahayd mid go'doon badeeda haddana bad leh maxay maxkamaddu u adeegsatay 12 mayl ee ay siisay Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen sharciyaqaano iyo khubarada baratay cilmiga badaha maxkamaddu waxa ay u adeegsatay go'aanka Kenya ay ku heshay marinkan qodob maamuus ahaan cadaynayana inaan dalna laga xiri karin badweynta marinkiisa haddii uu ka mid yahay dalal kale tusaale ahaan marka la samaynayo xaduud badeed haddii laba dal oo cirifkoodu isgaaro uu xayirayo dal kale oo u dhaxeeya haddii la raaci lahaa sida Soomaaliya ay rabtay waxa ay daris badeed noqon lahaayeen Tanzania iyo Soomaaliya Kenyana waxa ay noqon lahayd meel xiran oo aan badda looga gudbi karin haddana bad leh taas ayana maxkamaddu maamuus ahaan u qaadatay garsoorayaasha ayaa tixgeliyay maamuuska sheegaya in dalkaasi loo furo marin ay gaadiidka baddu soo maraan sidaas ayayna Kenya ku siiyeen 12 mayl oo albaaba oo ka baxsan biyaha Soomaaliya ee 12 mayl ka badana Soomaaliya maxay heshay Soomaaliya badii la isku hayay ee murankeedu taagnaa 90% ayay heshay Soomaaliya waxay ku guuleysatay in xariiqinta toosan laga qaado rukunka 29aad BB29 oo ah rukunka xuduudda ugu shisheeya ee deegaanka Dar es Salaam ku yaala taas oo ah faa'iido aad u weyn 3 Soomaaliya waxay heshay aagagii laga sahmiyay kheyraadka dabiiciga gaar ahaan ceelasha shidaalka ee ay hore Kenya qandaraaska ugu siisay shirkado shisheeye baaristana looga sameeyay 4 Soomaaliya waxay kala heshay in maanta laga bilaabo ay taqaano xuduudda badeed ee kala dhaxaysa dalalka Kenya iyo Tanzania oo uusan ma jiri doonin muran dambe oo ay dalalku isugu yimaadaan ICJ way soo gabagabaysay go'aanka hadda wax racfaana kama furna Soomaaliya sida muuqata madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu waa uu soo dhaweeyay qaraarka go'aanka ee maxkamadda ka yimid laakiin dhinaca Kenya hore ayay u sheegeen inaysan aqbali doonin haddana dhawaaqa dhankooda ayaa wali la naawilaya in la maqlo ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka
higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda madrasada darul istiqaama oo uga barateen barashada quraanka kariimka ah kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayga darul istiqaama wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran darul istiqaama daarta cilmiga